Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta halkaas oo kulamo kula yeelan doona madaxda ugu sareysa dalkaasi Imaaraadka Carabta. Rooble ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Abu Dhabi waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay wasiirka cadaaladda dalka Imaaraadka Carabta Abdallah Sultan Al Naimi. wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Abuukar Xaaji, wasiirka arrimaha dastuurka Saalax Axmed Jaamac, wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkari iyo mas'uuliyiin kale. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa, booqashada ra'iisul wasaare Rooble ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ujeedkeedu yahay xoojinta xiriirka u dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah iyo sidii loo sii horumarin lahaa. safarka ra'iisul wasaare Rooble ayaana ku soo aadaya iyadoo uu aad u xumaa xiriirka labada dal tan iyo Abriil 2018 kolkaas oo Muqdisho la wareegtay 9.6 milyan oo dollar oo ay leedahay Abu Dhabi, taas oo markaasi uu ra'iisul wasaare Rooble naftiisu raali gelin ka bixiyay. waxaa kale oo hadda isbedelay xiisadii gobolka Khaliijka iyadoo ay heshiis gaareen Qatar iyo dalal kale oo Imaaraadku ku jiro. waxaa kale oo xusid mudan in Sacuudiga oo xulafo la ah Imaaraadka uu safiiro u soo diray magaalada Muqdisho. arrimahaas oo lagu daro doorashada xilligan ka socota dalka ayaa xiisad gaar ah u yeelaysa booqashada ra'iisul wasaaraha. haddaba daawadayaal, waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa 7 qodob ay tahay in Rooble kala hadlo Imaaraadka Carabta. fududeynta ganacsiga iyo fiisaha. 4 sanadood ee la soo dhaafay, ganacsatada Soomaaliyeed ayaa culays kala kulmay Imaaraadka Carabta oo marin muhiim u ahaa ganacsigooda. fiisayaasha iyo tashiilaadka kale ayaa meesha ka baxay oo adkaaday, waxaana la joogaa in Rooble uu safarkan uga faa'iideysto arrintaasi kalena hadlo madaxda dalkaasi sidii Imaaraadku ay albaabada ugu furi lahaayeen ganacsatada Soomaaliyeed. qodobka labaad ee muhiimka ay tahay in ra'iisul wasaare Rooble uu kala hadlo madaxda ugu sareysa dalka Imaaraadka Carabta ayaa ah fududeynta ganacsiga. Soomaaliya waxay Imaaraadka u dhoofin jirtay xoolo, dahab iyo alaabo kale oo qiimo badan oo ku kacayay ilaa 200 milyan oo dollar sanadkii. Rooble waa inuu safarka kala hadlo Imaaraadka Carabta sidii ganacsatada Soomaaliyeed ay suuqyo cusub uga heli lahaayeen Imaaraadka Carabta. qodobka saddexaad, tababarka ciidanka. Imaaraadka Carabtu waxa ay joojiyeen tababar ay siin jireen ciidamada ku sugan Banaadir iyaga oo horay u tababari jiray in ka badan 2407 askari oo lagu daray ilaa 2000 oo Puntland ah oo bixin jiray waliba mushaarkooda. waxaana intaasi dheer in ay fureen 3 xarumood oo tababar ah. Rooble waa inuu kala hadlo soo celinta adeegaasi. 4 taageerada caafimaad. Imaaraadku waxay xireen Abriil 16 2018 isbitaalka Sheikh Zayed ee magaalada Muqdisho. waxaa si lacag la'aan ah maalin walba loogu daweyn jiray 200 ilaa 300 oo ah bukaano Soomaaliyeed, waxaana ka howlgeli jiray 40 qof oo Soomaali ah. 14 kamidana ay ahaayeen dhaqaatiir leh takhasusaad kala duwan. Rooble waa inuu kala hadlo Imaaraadka Carabta soo celinta howlahaasi muhiimka u ahaa dadka. 5 kabka miisaaniyadda. Imaaraadka iyo Sacuudigu waxay qayb ka ahaayeen dalalka kaba miisaaniyadda Soomaaliya iyaga oo sidoo kale taageeri jiray dhismaha maamulada. Rooble waa in safarkan uga faa'iideysto soo celinta kabka miisaaniyadda gaar ahaan sanadkan oo doorasho socoto. 6 wax ka qabashada abaaraha. Imaaraadku waxay xilligan Soomaaliya ka taageeri karaan wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyada oo 7 milyan ay dhibaato hayso, waxaana muhiim ah in Rooble uu arrinkaasi kala hadlo Abu Dhabi. 7 maalgashiga. Imaaraadka Carabtu waxay maalgashi ku samaysataa maamulada Soomaaliya sida Somaliland iyo Puntland iyadoo casriyeynaysa dekada Berbera oo ku bixisay 442 milyan oo dollar muddo 30 sanadood ah, halka 30 sano oo kalena ay dekada Boosaaso ku bixinayso 336 milyan oo dollar. waxaana loo joogaa xilligii Rooble uu Imaaraadka kala hadli lahaa in Imaaraadku sida Turkiga oo kale ay toos u yimaadaan magaalada Muqdisho, taasi oo albaabka u furi karta dalalka kale ee Khaliijka. ugu dambeyntii, Rooble waa inuu mas'uuliyad iska saaro in Imaaraadka Carabta uu kala hadlo sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka argagixisada, joojinta dhoofinta dhuxusha, ilaalinta madax bannaanida Soomaaliya iyo arrimo kale.